kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan halkani waa tahmiidiya qodobada wararka aan idin haynana waxa ugu doorkaroon Macawusley oo dilay horjooga sare oo ka tirsan al-shabaab iyo dagaal ka socda meel ku dhow degmada Cadale madaxweyne Farmaajo oo sheegay wadada kaliya ee lagu qaadan karo Soomaaliya Cabdirashiid Xidig qorshihii lagu dilay rabay waxa laga soo abaabulay xarunta madaxtooyada maamulka Jubbaland hal askari oo kaliya oo ka soo jeeda beelaha shanaad ayaa loo xukumay boqolaal bajaajley oo lagu toogtay magaalada Muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa gabar ka soo baxday salaadii taraawiixda oo toorey lagu dilay dal kale oo Yuruba ayaa aqoonsaday baasaboorka Soomaaliya akhbaaraadka dibadda aan idin haynana waxa kamid ah 100,000 oo ruux oo ku geeriyootay dalka Falastiin iyo wadamada Mareykanka iyo Kooriya oo hanjabaad hawada isku mariyay diyaad nagu cusubtahay fadlan daawada subscribe update channel-kan si aad u hesho warar xaqiiqooyin oo ku saabsan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa riix calaamada gambaleelka si kuugu soo dhacaan wax kasta oo aan channel-kan soo gelino corona u diyaar garooba warkaas oo dhameystiran Macawusleyda ka dagaalanta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa fariisin waxa ay ku leeyihiin degmada Cadale waxaana ay qaadaan weeraro gaadmo ah oo ay ku qaadayaan al-shabaab ciidankaas oo ah ciidan deegaan oo is abaabulay ayaa dagaalkooda waxa uu ka bilowday kadib markii ay sheegeen in xoog looga qaato xoolahooda wiilashooda yaryarna laga dhiga al-shabaab hogaamiye ka tirsan ciidanka Macawusleyda ayaa lagu dilay markii ugu horeysay ay is abaabuleen sidoo kale laba hogaamiye ayaa hal mar laga dilay taas oo aanan niyajab ku keenin ciidankaas ka dhisan gobolka Shabeellada Dhexe ee u taagan la dagaalanka al-shabaab warkan soo baxay ee ah sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab iyo 3 ilaaladiisa ah in lagu dilay deegaan ku dhow degmada Cadale ayaa soo baxay kadib markii la sheegay dagaal xoogan oo hub ay ku furteen Macawusleyda inuu ka dhacay deegaanka Xagarey waxa kale oo hadda la soo warinayaa in dagaal uu ka socdo deegaankaasi Xagarey waxaana uu dhex maraya al-shabaab iyo ciidanka Macawusleyda oo garab ka helaya ciidanka dawladda Soomaaliya wararka waxa intaasi ku darayaan Macawusleyda marba marka ka dambaysa inay helayaan gurmad isla markaana ay ka go'an tahay al-shabaab gobolka Shabeellada Dhexe inay ka saaraan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si dadban uga hadlay dhowr maalin kadib markii qariirad qaldan la dhigay page-ka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa ka hadlay wadaniyadda iyo sida loogu baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay isku duubnaadaan meel walba ay joogaan madaxweynaha ayaa soo qaatay hadal ku saabsan warka baraha bulshada lagu soo qoray ee ahaa in maabkii laga saaray Soomaaliya isla markaana ay tahay mid aan suurtagal ahayn oo aan laga filan karin dawlad darisa waxa uu sheegay dawladda Soomaaliya in ay tahay dawlad jirta oo kamid ah dalalkii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika xorriyadda qaatay waxa uu kaloo sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ay tahay halka wado oo kaliya ee Soomaaliya lagu qaadan karo in dadkooda ay u dhaqmaan qaabka iyo hadda wadada ay ku socdaan oo ah in loo kala dhuunto ajaanibta taas oo keeni karta dalka inuu faraha ka baxo cid kastana ay u soo mohato dalka Soomaaliya madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu leeyahay kheyraad badan oo loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan jaaliyad iyo kuwa dalka joogaba in ay si guud u wada ilaashadaan maadaama ay tahay hanti laga soo gaaray awoowayaasheen oo dhiig badan oo u soo daatay hal askari oo ka soo jeeda beelaha shanaad oo kaliya ayaa dil toogasho lagu xukumay iyadoo 100 bajaajley lagu dilay magaalada Muqdisho dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xamaalata bajaajta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay la kulantay tacadiyo aad u fara badan waxaana muddo hal sano iyo bar la diiwaan geliyay 103 dhalinyaro ah oo kamid ah dadka kaxeeya mootada bajaajta in ay ku dhinteen magaalada caasimadda ee Muqdisho laakiin taas bedelkeeda waxa soo ifbaxay war sheegaya in hal wiil oo askari ah oo ka tirsan ciidanka booliska oo beel ahaan ka soo jeeda beelaha shanaad oo kaliya in la toogtay taas oo keeni karta in ay noqoto mid aan cadaalad ahayn oo bulshada shaki badan ku abuuraysa toddobaadyo ka hor dhowr askari oo ka tirsan ciidanka dawladda ayaa siyaabo kala duwan waxay u dileen bajaajley waxaana hadda aan jirin cid soo qabatay oo maxkamad soo saartay inkastoo ay jiraan qaar xabsi ku jira
haddana waxaa lagu dhiiran layahay in dadkaasi la xukumo. Warbixin aynu helnay ayaa sheegaysa sababta halkaasi askari oo kaliya oo beelaha shanaad ka soo jeeda loo xukumay inay tahay in lagu dajiyo guddiga bajaajleyda iyo dhalinyarada bajaajta kaxayso oo markii tacaddi ku dhaco keenay inay banaanbaxyo waaweyn Muqdisho ka dhigaan oo dawladda ay dareensiiyaan dhibka ay qabaan. Laakiin waxaan la ogeyn sababta keenaysa hal askari oo kaliya 103 kiis in loo soo qabto oo xukunna lagu rido kuwa kalena ay banaankooda maraan. taas ayaa shaki gelinaysa awood qaybsiga Soomaaliya oo awalba ku dhisnaa hab aan fiicnayn oo ah 4.5. wararkayna ku helayno magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya gabar ka soo baxday salaadii taraawiixda in la dilay, waxaana gabadhaas oo soo tukatay salaada taraawiixda la sheegay in lagu dilay Toorey. 22 jir ayay ahayd gabadhan, waxayna ka mid ahayd dadka degan waqooyiga magaalada Gaalkacyo. gabadhan oo lagu magacaabi jiray Nimco Cumar Shire ayaa u geeriyootay dhaawac halbowlaha dhuunta ka soo gaaray kadib markii Toorey ay dareen kooxo hubaysan. wararku waxa intaas ku darayaan inaysan jirin cid ay ka cabsi qabtay gabadhaas oo Tooreydu ku dishay, laakiin waxa ay ka mid tahay falalka ka dhaca magaalada Gaalkacyo oo u badan dilal argoosi ah oo laga dareemo magaalada mararka qaar. gabadhaasi 22 jirka ah ee ka soo baxday salaada ee lagu dilay magaalada Gaalkacyo ayaa hadda baaritaano waxa wada maamulada Galmudug iyo Puntland oo ka wada armiya magaalada Gaalkacyo. dadka ku nool magaalada Gaalkacyo fajicisa ay ku noqotay qof salaadii ka soo baxay in Toorey dhuunta laga geliyo iyadoo aanan la ogeyn wax sababa oo loo dilayo. dal kale oo ka tirsan qaaradda Yurub ayaa ogolaaday in baasaboorka diblomaasiga iyo midka shaqaalaha dawladda lagu tagi karo dalalka reer Yurub. dalka Holland oo kamid ah wadamada reer Yurub ayaa hadda ogolaaday in baasaboorka gaduudan ee la yiraahdo diblomaasiga Soomaalida iyo midka shaqaalaha dawladda labadaba lagu dhoofi karo. safiirka Soomaaliya u fadhiyo midowga Yurub Danjire Cali Saciid Fiqi ayaa shaaca ka qaaday in la aqoonsaday baasaboorka Soomaaliyeed gaar ahaan midka shaqaalaha iyo kan diblomaasiyiinta. safiirka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dadaalada dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay wado ee ku aadan in dalalka adduunka guud ahaan ay aqoonsadaan baasaboorka Soomaalida oo aan lagu ekaynin midka diblomaasiga ah iyo midka shaqaalaha dawladda oo midka ay qaataan dadka rayidkana uu la mid noqdo dalalka aqoonsanayana inay si isku mid ah u wada aqoonsadaan. dawlado badan oo Norway iyo Sweden ay kamid tahay ayaa horey u sheegay inay aqoonsan yihiin baasaboorka Soomaaliyeed isla markaana ay doonayaan kuwa diblomaasiyiinta ah iyo shaqaalaha dawladda inay fiisa siiyaan markii ay dalkaasi galayaan. waxaana dawladda laga doonayaa inay dadaal ku bixiso baasaboorka dadka shacabka ah inuu la mid noqdo baasaboorada caalamka oo wadan kasta lagu tagi karo. halkaad inaga daawanaysaan waa Tahmiidiya. iminkana akhbaaraadka dibadda. 100,000 oo ruux ayaa u geeriyootay difaaca Falastiin. xafiiska xarunta dhexe ee Falastiiniyiinta ayaa soo saaray warbixin la xiriirta xaaladda dadka Falastiiniyiinta ee ku geeriyooday inta ay ku jireen difaaca dalkooda. warbixinta la soo saaray ayaa hay'adda Falastiin waxa ay sheegtay in dad gaaraya ilaa iyo 100,000 oo qof ay ku geeriyoodeen inta la difaacayay magaalada Gaza iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi Falastiin oo ay duulaan ba'an ku hayso xukuumadda Yahuuda laga soo bilaabo sanadkii 1948. warbixinta ayaa sheegtay in dadkaas geeriyooday ay u geeriyoodeen siyaabo kala duwan oo u badan in la duqeeyo ama weerar toos ah lagu dilo. xukuumadda Yahuuda ayaa dadaal ku bixinaysa inay Gaza caasimad ka dhigato, waxaana dadaal kale oo ay wadaan qaar yar oo aan badnayn oo kamid ah wadamada Carabta iyo Falastiiniyiinta isdifaacaysa ay doonayaan in Yahuud ay ka saaraan magaalada Gaza iyo dhammaan dhulka reer Falastiin oo dadka adduunka jooga oo dhan uu aaminsan yahay in Falastiin lagu soo duulay. 100,000 ee la dilay
ee Falastiiniyiinta ma jiraan cid si toos ah uga garawday waxaana wadamada xoog leh ee reer galbeedka uu Mareykanku ugu weyn yahay markasta uu bilaabaa dadaal la doonayo in lagu garab istaago xukuumadda Yahuudda oo baadil ku joogta deegaanada dadka reer Falastiin. afayeen u hadlay Falastiiniyiinta ayaa sheegay dhibaatada gaartay dadkaasi masaakiinta ah inay yihiin dad shuhada ah oo dalkooda difaacayo welina dulmigu adduunka ka sii jiro oo markasta tiro badan la dilo. ikhyaartina daawatay war wixii dalka iyo daafihiisa inaga soo gaaray oo aad kala socoteen Tah Media waa naga inta waxay naga xasuusinaa channelkan inaad subscribe saartaan mahadsanidin.